Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalyaal mar walba joogtaan soo dhawaada. insha allah muuqaalka laag saara. waxaan ka bilaabi doonaa cashirkeena caawa relative atomic mass ayaan ka bilaabi doonaa. intaan gudaha u gelin waxaan hore usoo qaadanay isotopes. Isotopes waxaa lahanaanay are the elements waa curyaal which also have the same atomic number but laakiin different ku kala duwan mass number. kuwa markay mass number ku kala duwanaadaan curyaashu ayaa waxaa loo yaqaanaa isotope. Isotope ayaa loo yaqaanaa markay mass numberku ku kala duwanaadaan. mass numberkaas inuu isbedbedelo ama curyaha mass numberkiis inuu isbedbedelo waxaa sabab u ah nahnay neutronada uu leeyahay oo kala duwan. sababtan waxaan nahnay waxaa lagu helaa atom weightka ayaa waxaa lagu helaa proton lagu dar neutron. tirada protonka ah ama atomic numberka tiradaasi isma bedelayso mar walba constant ay u tahay curyuhu, laakiin waxaa isbedelayaan dhaanay tirada atomic masska curyaha uu wato ayaa isbedbedel uu ku imaanaa. that is called taasa waxaa loo yaqaanaa markaas ayaan ku tilmaamaynaa marka isbedbedelkaas ku imaanaya isotope loo yaqaanaa. waayahay inaa fahanteen aan filayaa kaas. waxaan hadda caawa qaadanaynaa culeysyadaas curyaha uu wato culeysaa ugu dhow culeyska ugu dhow ee uu qaadan karo qaabka loo xisaabiya. waayo culeysyadaas uu wato mid ayaa percentagekiis uu u badan yahay, mid ayaa percentage badan uu ku leeyahay culeysyadaas amaba aada boqoleyda ugu badan uu ku lahaanaa. culeyskaasi marka culeyska ugu dhow sidee loo xisaabiyaa? relative waxaa waaye qaraabada la ah ugu dhow la xiriira waa qaabka. waayo aan fiirino the actual mass markaan fiirino culeyska dhabta of individual ee walaxdan ee atomka of an elementiga is so small waa mid aada iyo aada u yar weeyaan. das haddaba we use waxaan isticmaalaynaa relative atomic mass oo ram ah. relative atomic mass ayaan isticmaalaynaa waayo taasoo isdefine as lagu qeexo the mass waa culeyska of an element ee curyaha ayaa lagu qeexaa, taasoo relate xiriir leh to the one loo qeybiyey 2 alif of the mass of the one of the atom of a carbon. waa max carbon 2 alif waa maxa carbon 2 alif kaarboonadaasi culeysyada kala duwan leh ayaa tusaale waxaa loo qeybinayaa hal loo qeybi 12 waa most elements. marka sidee ku noqoto waa marka waxaa waaye kaarboonkaas hadda carbon 2 alif kaarboonka culeyska 12 wato mid kamid a kaarboonadaas oo loo qeybi marka waxaa lagu helaa isdhifaanaas waxaa lagu helaa the mass ama lagu qeexaa the mass waa culeyska of an element ee curyuhu, taasoo relate xiriir to the one loo qeybi 2 alif of the mass mid kamid ah of the mass culeyska of a one atom mid kamid atomyada of a carbon 2 alif mid kamid weeyaan. marka qaabka marka saasay noqonaysaa. most elements curyaash intooda ugu badan waxay leeyihiin more than in ka badan one isotope. marka tiradan 12 ah waa meesha ugu horeysay ee laga go-aamay waa relative atomic masska. marka hal loo qeybiyey 12 one of the mid kamid a kaarboonada ku dhahayo carbon waa curyihii ugu horeeyey ee relative atomic mass markii la baranayo ama aqoon loo lahaanayay ama la soo saaray laga tijaabi waa saa darteed markuu u qeexay. saa darteed meeshaas marka laga keenay ka hal kaarboonadaasi isbedbedelayo mid kamid ah oo loo qeybiyey 2 alif saasaa lahay saasaa lagu halbeegaas lagu halbeego wax badan looga ogaaday ayaa saa darteed lagu qeex marka carbon 2 alif. waayahay most elements inta ugu badan curyaashu half a more than waxay leeyihiin one isotope yeeshaan. therefore si darteeda the relative atomic mass of the elements oo curyaash is a average waa maxay isku celiskooda is the average mass ay leeyihiin of the isotope ay leeyihiin kaasoo taken qaadanayo atomic mass of the element ayuu qaadanayaa. is the average one isku celis is the average mass of the isotope waaye. waxaan soo kale heli karnaa average mass of the isotope ayaa soo kale heli karnaa.
atomic mass atomic mass of the element markaa fiirino it is the average waa isku celiska. waxaa kaloo dhigi karnaa waa isku celiska culayska isotope waa maxay? waa isku celiska culaysyadii kala duwanaa kuwaasoo taken into waa maxay? taken into account lagu tiriyo the abundance boqolleyda of each isotope. boqolleyda isotope walba ayaa markaas la tiri doonaa, boqolleydooda ayaa markaas la xisaabin doonaa oo lala tiri doonaa. relative atomic masska can be abbreviated waxaa loo soo gaaba AR amaba RAM oo relative atomic mass AR amaba ama atomic relative waa la kara amaba relative atomic mass waliba RAM ay buugagta ba isticmaalaan. it is always marka decimal without unit waxaa noo soo bixi doona jajab aan wax halbeeg aan wadanin. ana found the periodic table ayaan ka heli doonaa. waxaan heli doonaa marka culayska periodic tableka marka ay ku qoreen curyaashu ay wataan culayskaasaan heli doonaa. waayahay relative atomic mass markaa fiirino relative atomic masska is sometime mararka qol waxaa loo yaqaana atomic mass ama atomic weight waa la dhihi karaa or amasane average massna waa dhihi karnaa. waa kana qaacidadan lagu helaa submission in laisku daro isotope abundance oo ku dhacsan isotope mass number. isotopeka lagu siiyey waxaa ku dhufanaysaa percentage-ka lagu siiyey ee uu wato isotopekaas. waxaadna u qaybinaysaa isotope abundance. sidoo kale waxaa u qaybinaysaa 100 ayaa u qaybinaysaa si aad boqoleydian u saarto boqoleydii uu watay si aad u saarto. waayo bal ila fiir example-kaas u fahantaan. calculate weliba waa laisku darsanayaa iska ilaali. calculate xisaabi sidee laisku darsan doona hadda arki doontaa. calculate xisaabi the average atomic mass of chlorine if haddii abundance in natural uu yahay boqoleyda lagu arkay rabbaaniga 75.7 boqolkiiba oo ah chlorine 35 iyo soo kale 4.3 ayaa wata waa chlorine 37 wadad. soo ma jeedid chlorine meeshaas ka saxa chlorine 37 ka dhiga waa saxan meeshaas chlorine 37 laga dhiga meeshaas. waayo marka taasaan xisaabinayna maxaan haystanaa hadda tusaalahan aan fiirin walaalayaal aan fiirina si aad wax badan ugu fahantaan. waxaan haysanaa chlorine 35 iyo chlorine 37. chlorine 35 waxay leedahay chlorine 35 waxay leedahay boqoley ay wadataa leedahay 75.7 boqolkiiba Soomaa 75.7 boqolkiiba ayay leedahay. chlorine 37 chlorine 37 waxay leedahay 24.3 boqolkiiba. maxaa laga rabaa marka culayska average mass culayska ugu dhow labada chlorine bas laakiin chlorine waxaa la curiyaa chlorine culayska ugu dhow ee uu qaadan karo isku celiska waayo waxaan ku helaynaa marka qaacidadii buugga midka si kalena waa u dhigi karnaa percentage 1 oo ku dhacsan aan leenahay mass 1 intaasoo isku dhacsan oo lagu daryaa leenahay percentage 2 oo ku dhacsan ama maaska idiin soo hormariya mass 1 oo ku dhacsan percentage 1 intaasoo isku dhacsan oo lagu daray mass 2 oo ku dhacsan percentage 2. aye aan bilowno marka waayo markaan bilowno mass 1 meeqaa marka 35 oo ku dhacsan percentage 1 percentage 1 meeqaa marka percentage 1 waxaa waaye ilaa waa isku dhacayan soo ma jeeda qaacidada intaas marka waxaa loo qaybinayaa intaas waxaa loo qaybinayaa percentage 1 oo lagu daro percentage 2 macnaha percentage 1 iyo percentage 2 oo lagu daro waxaa marka boqoleydooda waa macnaha
labadooda boqoleydooda marka la isku dardaro labadaasay 3% ay taalana 3% oo la isku daray noqonaysaa 3% boqoleydooda isku darno marka boqolkiiba boqol marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay percentage 1 lagu dar percentage 2 boqolkiiba boqol loo qaybina waa macnaheedu warka ka dhacardayo haye oo ku dhacsan percentage 1 meeqa haysan marka 75.7 boqolkiiba ayaan haysanay intaas hal mar aan wada qaybinayna boqoleyda haye intaas oo lagu darayaa leenahay maaftu meeqaan haysanaa 37 oo ku dhacsanaa leenahay 24.23 boqolkiiba oo loo qaybiyaa leenahay boqolkiiba boqol sabab boqolkiiba boqol saa ku keenay labadan boqol ee isku dar 75.7 ku dar waxay nooga dartaa 24.23 boqolkiiba boqol sama jeedin marka boqolkiiba boqol waa saasa loo jeedaa boqol saasa ku keenay labada percentage ee leysio percentage oo isku daraya loo qaybinaa mid walba waay dhamaan loo wada qaybinaa waay markaan fiir marka aan xisaabin marka scientific aan gelina scientific marka ku xisaabinaysa marka waxaan leenahay 35 oo ku dhacsan aan leenahay 77 waay markaan fiir marka walaal scientific si aan gelinayna marka scientific marka gelinaysid waa kala qaaqaaday iska ilaali hadii kala dhow kala waa qaldin 35 ma haysta halkan oo ku dhacsan aan leenahay 75.7 intaas oo loo qaybiyaa leedahay boqolka waa kala siinay labadooda mid walba waa kala siinay iska ilaali oo loo qayb boqol ma halkan ka soo baxa marka waa halkan ka soo baxay 26.5 oo lagu daray waa noo socotaa marka fiiri waxaan leenahay sidoo kale 37 oo lagu dhuftaan leenahay 24.23 oo loo qaybi boqolkiiba boqol 8.9 soo buux meeqa waa 9 isku soo darsan marka 26.5 lagu dar 9 leh meeqa soo baxaysa 35.5 waa relative atomic mass of chlorine RAM culayska ugu dhow ee chlorine ay leedahay ama periodic table ku qoran waa sidaas marka fiiriso waana kana buugan waa kaaga shaqeynaa waa qaabka marka fiiriso laakiin marka la xisaabinayo qaabkaas loo sameeyo 35.48 oo soo saaray laakiin soo buuxi 35.5 ay noqonaysaa ugu dambeyntii example labaad marka fiirino calculate xisaab example kan wax badan ka qaldan waa sax doonaa sigana calculate xisaab the average atomic mass of oxygen xisaabi if the abundance in nature ay tahay 76 meeshan waxa laga rabaa 99.76 sax meeshaas 99.76 boqolkii ayaa laga rabaa buuga oo oxygen 16 ah iyo eber 4 oo ah oxygen 17 ah iyo soo kale meeshan waxa ka maqan soo kale percentage kala ka baqan eber 20 yaa wada talaaka oxygen 18 wadad ina saas ogaataa oo haye marka see ku ogaatay waa intaan isku soo dardar boqoleydooda boqolkiiba boqol inay keenaan la rabaa saasa ku ogaaday fiiriya exercise kan uu ku qoraa shaqadan uu ku qoraa laakiin warkan ku qorahay 99.76 oo lagu darayaa leenahay maxaan ku daraynaa eber 4 oo lagu sii darayaa leenahay eber 20
9 soo buux marka dhibic 8 ku buuxi halka soo qaad 8 boqolkiiba boqol saasi ku imaanay waayo marka qaabkaas ay noqonaysaa marka walaal inaad fahantayaan filayaa qaabkaas ay noqonaysaa marka aan xisaabinayno guud ahaantiiba waa qaabka waayo marka aan xisaabino marka given maxaan haystaa maxaase laga rabaa ila soco walaal waxaan haysanaa oxygen ayaan haystaa oo ah oxygen 16 waxaan haystaa 99.76 haye sidoo kale waxaan haysanaa oxygen 17 waxaan haysanaa oxygen 17 ayaan haysanaa oxygen 17 marka aan ka hadlayno iyadana waxaa weeyaan waxaan haysanaa boqoleydeedu eber dhibic eber 4 boqolkiiba oxygen 18 uu ka tagay buugga laakiin aniga aan ku daray oxygen 18 tan kale lahaa buugga marka waa ka tagay laakiin buwaagta kale marka fiirso qorayaan saas ay qorayaan eber 20 boqolkiiba waayo kuwaana xisaabayna marka qaacidadeena ku helaynaa haye culayska curyaha 16 oo lagu dhuftay boqoleydiis 99.76 boqolkiiba haye intaas oo loo qeybiyaa leenahay boqol mid walba boqolkiis koonaysi balaas haye 17 oo lagu dhuftaa leenahay eber dhibic eber 4 boqolkiiba boqoleyda maxaan ku baabi'i karaa boqolkiiba boqolaa ku baabi'i karaa haye oo lagu daryaa leenahay sidoo kale 18 oo ku dhacsan 18 oo ku dhacsan eber dhibic eber 20 oo loo qeybiyaa leenahay boqolkiiba boqol soo ma jeedid hay intaas aan samayna marka maxay noqonaysaa marka ila soco scientific saas u gelina waxaan leeyahay eber dhibic 16 lagu dhuftaan leeyahay 99.76 oo loo qeybiyaa leenahay intaas oo loo qeybi boqol waa 15.96 15 waxaa noo soo bax midda koowaad 15.96 oo waxaa lagu dari doonaa inta kale inta nooga soo baxay waayahay waxaa leenahay 17 lagu dhuftay eber dhibic eber 4 oo loo qeybiyaa leenahay boqol jajabaa soo bixi doona soo maa haye jajabka wuxuu noo noqonaa marka eber dhibic eber eber 68 oo lagu daray eber dhibic eber eber 68 oo lagu sii daryaa leenahay intaas lagu sii daray ila socotan kalena eber dhibic eber 20 oo ku dhacsan 10 iyo ama 18 lagu dhuftay eber dhibic eber 20 waa iskala hormari kartaa caadi loo qeybiyey boqolkiiba boqol eber dhibic eber eber 36 intan waxaan ku qoran doonaa eber dhibic eber kale 36 isku soo darso marka intaas isku soo darso waxay noqonaysaa 15.96 oo lagu daraya leenahay eber dhibic eber 68 oo lagu daray eber dhibic eber 36 maxay noqotay meesha fiir 15.9 soo buux marka meeqay noqonaysaa oxygen waxay la mid noqonaysaa 16 9 soo buux 16 culayska ugu dhow oxygen waa 16 waxaa kaloo ku ogaanay culayskaas inuu ugu dhow yahay boqoleyda fiirnelsi 3 boqolnelsi yaa ugu boqoley badan oxygen 16 ka ugu boqoley badan sama saa dartee saasa lagu ogaadayba saasa ku ogaatay kartaa xataa waayo culayska curiyahan kan isotoopka boqoleyda ugu badan uu ku leeyahay ku shaqeynaa chemical reactions marka la joogo nuclear reaction marka la joogo culeysyada kala duwan ee curiyaasha uu shaqeynaa mid walba uu shaqeynaa laakiin marka chemical reaction uu joogo wuxuu ku shaqeynayaa kaliya culeyskaasi markaasi ugu badan ee ugu dhow curiyuhu boqoleyda ugu badan uu ku haysto ayuu ku shaqeynaa waa example saddexaad aan fiirina natural copper rabbaani ah
oo ilaahay abuuray ayaa consist of waxay ka kooban tahay kubar 63 iyo kubar 65 hadda what is the percentage waa maxay boqolleyda abundance boqolleydooda la heli karo kubar 63 boqolleydooda if haddii the average mass of a kubar uu yahay average mass maanta waxaa ram oo kubar relative to mass culays kugu dhow ee kubar haddii uu yahay 63.5 shaqa inoo taala ila soco qaacidadeeni ayaan ku shaqay doonaa qaacidadeeni maxay ahayd qaacidadeeni waxay ahayd m1 oo ku dhacsan marka r inta waxay ahayd ram waya waxaan wax lagu helo ram waxaa lagu helaa m1 oo ku dhacsan b1 oo loo qayb m2 oo loo ku dhacsan oo lagu daray m2 oo lagu dhuftay b2 oo loo qaybi b1 lagu dhuftay lagu daray b2 waayo aan fiirin halkaan si u fahantaan waxaa leenahay ram ee qaaysta horta average mass-keeda kubar average mass-keeda waxaan haystaa oo laysiya 63 ilaa average lagu sheegaa ayaa ah ram average isku celiska uu ku sheegaa waxaa ah ram waayo soo kale waxaan haysanaa soo kale midka marka waxaa ram waay sama kubar ram kubar 63 haystaa marka waxaan haysanaa kubar 63 ayaan haysanaa soo kale waxaa kaloo meesha aan ku haysanaa sidoo kale kubar 65 waxaan kaloo meesha ku haysanaa kubar 65 idan oo ku haysanaa waaya what is the percentage of kubar 63 ayaa la weydiiyey taas hadaa la weydiiyey tankan qasab waayo percentagekeeda inaan raadino idan percentagekeeda inaan raadino qasab waayo sideen ku heli karnaa marka ila soco qaabka aan ku heli karna ayaan rabaa inaad ila fahanto aada igula soco insha allah waxaan leenahay marka qaacidadii aan ku shaqaynaynaa ram waxaa lagu helaa aan leenahay ram waxaa lagu helaa b1 oo ku dhacsan m1 oo lagu daray b2 oo ku dhacsan m2 intaas oo loo qaybiyey percentage 1 oo lagu daray percentage 2 haye aan fiir marka ram ee qaalaysay 63 aada igula soc meeshaan walaal 63.5 equal intaas waxay la mid yihiin percentage 1 mee qaalaysay markeedana percentage 1 waxaa laysiiyey waxaan haystaa percentage 1 percentage 1 ma haysto maadaama aan haysan percentage 1 waxaan u qaadanaynaa x oo ku dhacsan maxaan ku dhufanaynaa 63 ilaan kubarta koowaad 63 waaye haye intaas oo waxaan leenahay lagu daray haye percentageka labaad asigana ma haysto maadaama aan haysanin maxaan samaynaynaa asigana waxaan leenahay 100 haye oo laga jaray midka lee weydiiyey 100 oo laga jaray 100 oo laga jaray x waxaa percentageka ma aqaan macnaha waxaan rabaa tusaale inaan xisaabiyo x-ka hadda wuxuu u taagan yahay boqolkii markaasi lee weydiiyey percentagekii lee weydiiyey percentage galaas hadday 100 ku jirto tusaale waxaa dhahay galaaskan 100 ardaya ku jirto galaaskan 100 ardaya ku jirta lu dhahay 20 boqolkiiba way baastay meeqa markaasi dhacday waxaa dhacday 80 boqolkiiba marka fiir 20 boqolkiiba way baastay marka lu dhahay galaaskan 20 aad u faham meeshaan walaal 20 boqolkiiba way baastay marka lu dhahay waxay ka dhigantaa marka 20 boqolkiiba hadday baastay waxaa isweydiin kartaa meeqa markaasi dhacday waxaa dhacday marka aad rabtid inaad inta dhacday aa ogaatid waxaa samaynaysaa boqolkiiba 100 oo laga jar 20 meeqa markaasi galaaskan markaa baastay 20 boqolkiiba way dhacdaa la meeqa baastay marka waxaa baastay 120 ka jar meeqa ay noqonaysaa waxay noqonaysaa 80 boqolkiiba ayaa baastay waa macnaheeda marka waxay ka dhigan tahay marka 100 waxaa waa total boqolkii guud waa oo laga jaray percentageka markaasi percentageka nala weydiiyey oo aan la aqoonin oo laga jaray aan leenahay intaasoo hal meel ah waxaa ku dhacsan kubar 65 saasa u sameyn iska ilaali buug weliba wadadeeda ka fudud wadada buug uu maraayo
wadadeyda ka fudud I believe oo ka fudud haye intaas oo loo qaybiyaa leenahay boqolkiiba boqol intaas oo loo qaybinayo boqolkiiba boqol ilaan percentage-kii guud waa kan soma waayahay maxaan sameynaynaa marka walaal waxaan sameynaynaa 63.5 intaa hor sidaad igu soo qaad labadan isku dhufo waxay noqonaysaa 63x ay noqonaysaa labadaana fiir markaan fiirino labadaa markaan fiirino kan oo ku dhacaa kan oo ku dhacaa aad igula soc marka 100 ku dhufo 65 marka waxay noqonaysaa markaan fiirino balaas 6500 6500 kan waxay noqonaysaa minus x ku dhufo 65 waxay noqonaysaa minus 65x minus 65x ay noqonaysaa intaas marka saas aan u haysan equation aan noo soo baxsama equationka waxaan rabaa inaan hagaajin karno horta equationka aan hagaajino equationkan marka aan hagaajinayno wixii 65x iyo 63x oo isku mid labadaas waxaa waaye x yadoo isku mid ka yihiin hal meel isla keen 63.5 equal waxay la mid noqonaysaa 63x minus 65x plus 6500 gadaal mari midaan ilaa number waa ka duwan tahay hay labada maxay noqonayaan way kala jarmayaan minus 65 ka jar 63.5 equal waxay la mid noqonaysaa minus 2x plus minus 2x plus 6500 6500 midaan boqolkiiba boqol aad jirto ma qaacidada ah yani iloobin taasna yaa iska ilaaliya haye intaas minus 6500 intaas oo loo sii qaybiyay boqolkiiba boqol ilaan qaacidada waa boqolkiiba boqol idana waaye wax mar walba loo qaybinayo waaye markaan fiirin intaas kadib maxaan sameeynaa cross hadda sameey karnaa marka cross aan sameyno waaye marka cross sameyno waxay noqonaysaa cross markaa sameyno 63.5 inta horseeda ay ku imaanayaan minus 2x aa leedahay minus 2x ay plus 6500 oo hal meel wada ah plus 6500 oo hal meel wada ah intaan isku dhacayaan 63.5 waxaan leenahay 63.5 oo lagu dhuftaa leenahay boqolkiiba boqol maxaa soo baxay 6350 waxaa soo baxaysa 6350 ayaa soo baxaysa maxaan sameynaynaa marka equation ka hagaajin waayo sama hagaajin oo raba waxaan leenahay midaan inta ii soo maray waayahay waxaan sameynaynaa marka minus 2x meesheeda ugu tag equal ii dheh tan after equal mari waxay noqonaysaa horta tan sideed ugu soo qaad 6350 oo laga jarayaa leedahay 6350 oo laga jaray 6500 soo ma jeed labadan kala jar marka maxay noqonaysaa marka minus 2x equal ilaan sababtoo tan waxaa intuu soo mariyay after equal ay imaad after equal maadaama ay ku imaatay tan after equal shakadaasha maadaama imaatay minus ay ku imaanay iyo kala jar marka labadaa way kala jarmayaan labadaa number sababtan waxaa hal meel waxaan wada maray laba number oo isku mid ah way kala jarmayaan marka 6350 oo laga jarayaa leenahay 6500 waxay noqonaysaa minus 150 soo bixis marka minus 150 equal minus hay maxaan sameynaa marka si aan x ka u hel dhinac walba minus 2 ku baabi'i dhinacaana minus 2 ku baabi'i minus 2 iyo minus 2 gaan la wada baxayaan minus iyo minus gaan la wada baxayaan 150 u qaybi minus 2 amaba caadi isku baabi'i kadib 100 minus wada taasama minus ka uu qaybi daarbtid minus ka uu qaybi 75 gaw sababta minus iyo minus ku isla baxayaan positive soo baxay sama x ka wuxuu la mid noqonayaa 75 nasaas ogaataa x ka wuxuu la mid noqonayaa marka percentage ka koowaad x1 ka koowaad wuxuu la mid noqonayaa 75 percentage ka koowaad wuxuu la mid noqonayaa 75 x ka labaadna maxaan ku helayaa marka x ka labaad percentage ka labaad maxaan ku helaynaa marka percentage ka labaad waxaan u qaadanaynaa 100 laga jaray minus x aan u qaadanaynaa sama haye x ka labaad waxaan leenahay 100 laga jaray
x-ka maxaa ii soo baxay 75 waxaan leenahay x2 wuxuu la mid noqonayaa ugu dambeyntii 100 laga jaray 75 wuxuu noqonayaa x-kayga labaadna 25 boqolkiiba inkastoo aan lee weydiin tan lee weydiiyo kobar 63 lee weydiiyey saan marka ujeedaa marka marka daa markaan dhahay 100 minus x markaan dhahay x-ka lee weydiiyey percentage lee weydiiyey markaasi ma haysan maya x aan u qaadanay boqolkan waxa waaye sababta aan u qaadan waxa waa shay walba percentage la sameeynaa 100 lagu halbeega Soomaa 100 halbeeg waa percentage walba Soomaa lagu qiyaas qaataa inaasas ogaataa waaye buugan waa ka shaqeynaa fiiri laakiin wadada aan mariya aad iyo aad u fudud buuga xoogaa waxa u moodaa inuu aad soo kokoobayo u moodaa marka qaabka buugan waa kaaga shaqeynaa hinta u qaado ku leeyahay waa ka ugu dambeyntii uu ka shaqeynaya 100 u qaado let x aan qaadan b percentage kanaga maqan aan qaadano waa qaabka marka fiirino abundance average maska noo isku dardaraya kadibna 100 loo qaybinayo ku leeyahay waa sida aan sameeyno laakiin sideeda ayaa aad u faahfaahsan inaad wax badan ka fahanteen waan filayaa therefore waa kala jaraya 100 laga jaray 75 boqolkiiba x-ka labaad waa ka the term atomic mass is sometimes marar qaar confused waa lagu jaha wareeraa u leeyahay ereyga atomic masska marar qaar waa lagu jaha wareera ka imaado leeyahay with a mass number but laakiin there is waxa jira differences waa maxay kala duwanaansho biduun dhaxaydam iyaga to understand saan u fahno distant study waa maxay barashadoo saan u baran hadaba wuxuu ku leeyahay table below jadwalka hoos imaaw waa kana marka mass number iyo atomic weight way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin it is waxa weeyaan the total number of a nucleons mass number hadaa maqashid waa tirada guud ee nucleons waxaa loo jeedaa walaal proton lagu dar neutron proton plus neutron tirada protonka oo lagu dar neutronka waxaa loo jeedaa nucleons saas u faham ereyga nucleon hadaa maqashid waa number of proton oo lagu dar number of neutron soo kale kana it is the average atomic mass hadaa maqashid waa average weight culayska guud of an element ee curiyaha uu yeelan kara tan waxaa mass number hadaa maqashid waa average ka yeelan kara nucleonska total number of nucleons kan laakiin waxaa atomic masska average of an element isku celiska guud ee curiyuhu it is always a whole number waa kan mass numberka laakiin kan it is always a decimal number uu noqon karaa asiga jajab uu noqon karaa it is not found in the periodic table ma laga helo mass numberka periodic table lagama hela laakiin atomic masska it is found in the periodic table laga helaa oo tirada markaasi percentage-ka ugu badan ee curiyaha uu watay culayska percentage-ka ugu badan wata weeyaan mass atomic mass ana soo fahantaa weeyaan halkaas ayaan geynaynaa insha Allah haddii aan la idmo xiisadeen xigta waxay inooga bilaaban doontaa energy levels ay inooga bilaaban doontaa halka ay inoo joogto walaalayaal video aad u dheeraaday caawa waa mahadsantiin walaalayaal